بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينه رجال مدوب أحمد دعالة جيلة xildhibaanada senatarada madaxda qeybaha kala duwan ka soo qayb gashay munaasabadan dhammaan madax kasta halka lagu joogo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib dhammaan waxaan mahad celinaynaa intii nagala soo qayb gashay munaasabadan aad iyo aad ku qiimaha badan iyo soo dhaweynta madaxweyne axmed ducaale geelle aan ku soo dhaweynay maantay magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug intii ka qayb qaadatay qof kasta kaalintii uu ku lahaa ooga mahad celinaynaa intaas kadib maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabbihii galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh galmudug isu keenay u tanasulay odatinimo aan horay galmudug u soo marin ka geystay maantay in halkaa la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyey ama odatinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyey maantay u muujiyey galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabii yararkaayoo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinayay galmudug dhexdeeda waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf khilaaf iyo tabasho galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahaddiis aragtideennii bay ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu wax ka tabanayo iyo sida wax u tabanayo inaan ugu tagno ninkii ugu muhiimsanaa oo galmudug sidaan hore usoo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu galmudug u tanasulay odatinimadiisii shalay lagu yaqaanana uu ka dhabeeyey waxaan leenahay mudane axmed ducaale soo dhawow madaxweyne dadkaagii dalkaaga ku soo dhawow sharafay kuu hayaan odagoodii baa tahay odageennii baa tahay shalna taariikhaad u dhigtay maantana taarikh baad u dhigtay waxaan ku leeyahay waxaa intaa ka dambeeyana tashi iyo talo iyo odaygeed fadhiga had galmudug u tahay aad iyo aadaan mar labaad inkuu mahad celinayaa waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweyne axmed ducaale geelle bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maanta waa maalin aad iyo aad qiimo badan ugu leh galmudug runtii waxaan rabaa inaan reer galmudug sheego iyo dadka soomaaliyeed oo dhan alkhilaafu fitna waalfitnatu ashaddu min alqatl qof kastaa inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa annagu waxaan soo rutinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn xoogaa yar bay ahaydoo kululaysee haddana waxaan rajaynayaa odayga waa tanasulay waa la tuurayaa la odhan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka ma tiri naqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogto o dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataan loo baahan yahay galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna
أنا جيت فدي كلية ما هي وحنا يعني اسكفر يوم قلمي ما بكتة جايبة حمر ذم ما صعود خوف المو أنا شدتك يدكذا أنا لسانه وهل كسر إسكاذا يا أيضا وحنا على يوصل تاكليه يا رك بدنا ماشي شوقو وريوصل تاكليه باش لا فدك الداي ورك وينو دنبيا هبين دنبيا مربع حفلة دقن دونا عن ما ركتي سيفي عنو كفترنا هذه بعد ما حسنتهين قال مذب ومد لما معها ساعدنا على قبل العالم هذه بعد ما حسنتهين رك بدنا ماشي شوق أو عن dareen ka qaba waa jiraan iga raali hada hadii mar hoos baan u kaftami doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wax dhibaato ay ma jiraan qof walba qalbiga khayr u sheeg hala shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu